wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa waxa uu uga digay hoteelada waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo goobaha kale ee lagu xiji jiray sanadyada cusub in sanadkani cusub ee 18 guud ahaanba aan lagu xuseynin dalka Soomaaliland. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ciidamada Soomaaliland ku wargeliyay inay ka warhayaan goobaha lagu xusayo xuska 2018. wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa imkana waxaan u mareynaa hawadan u mareynaa hadii la yiraahdo waxaan leenahay sidii horeba adigniyaha u qabi jirteen baa u qabtaan arin lagu cusub ma aha sanad walba oo ka hadalna imkana waxaan leenahay sidii hore waxaba jirtay dhaqan loo jiro caadi ah oo wixii gaadha 12 habeenimo inaan xaflad bal qabanin baa jirtay aroos hadii tahay iyo hadii wax kale tahay waayo xilligaas xilliga la seexanayay waa xilliga dadku ay hurdo tagayeen ma xilligii damaashadii sidaa darteed halkii uu markaa si adkaynayna farintan farayna aan uga faa'iidsanayo media-hana waxa weeye walaalayaal qolooyinkiina hodheelada lahow in ka faa'iidstaan hodheeladiina diidi mayno laakiin xafladaha noocaas oo kale ay ku qaataan waa arrin sharci ka soo horjeeda iyo dastuurkeena. wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay dhalinyarada maalmihii ugu dambeeyay timaha lagaga guraayay isagoo dhalinyarada uga digay inay timaha la baxaan kana fogaadaan dhaqamada aan ku weyn islaamka ahayn. wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxa runtii maalmahan dambe arkayseen iyadoo xukuumaddu runtii ay ka howlgelayso gaar ahaan laamaha amnigu dhaqan xumada oo laga hortago iyo dhalinyarada runtii dhaqankooda yani maartay ka tagtay ku dayashada sameysay indhala'aanta ah inay maxaan ku raadayay wax ka qabato haday tahay dhinacii kooxaysiga dhalinyarada haday tahay dhinacii maxaan ku raadayay dharka iyo qaabka u xiran yihiin ama timaa u xiranayaan wax la mid ka ah oo runtii noqotay wax fare laga qaada oo waalidkii iyo aan ixtiraamaynin dhinacii madaarista iskuulada aan laga xishoonaynin oo markastoo baa loo hagaajiyaba ad arkayso iyagoo haddana si kale ama ciyaarto waxay ku daydaan ama maarata dad kale oo maxaa jilayaasha aflaamta ku daydaan ama dad maarata dhaqankooda aan dhaqankeena ka duwan yahay ku daydaan waxaasoo dhan runtii waxay ka mid ahayd waxyaalaha runtii wasaaradda diinta awqaaftu ay xaqiiqatan 110 maalmood ee xukuumadda cusub ay ka hirgelinayso maxaan ku dhahday in dadka lagu soo dabaalo dhaqankii wanaagsanaa oo ka hadli doonto insha Allah taala dhibaatada qabyaalada noogu hayso laga hadli doono insha Allah taala dhibaatooyinku inoo geysanayaan mukhadaraad kala duwan iyo maxaan ku dhahday dhalinyaradaas kooxaysiga islaynaysa lama amaanka waan ku mahadnaqaynaa sida fiican runtii gacanta uga qabteen markii digniintii iyo waanadiiba ay israaci waayeen dhalinyarada. xamse jaamac xuseen awowo Star TV Hargeysa.